ma jeceshahay ilmahaagu fursadda ugu fiican ee tacliinta inuu helo haddii aad degan tahay dalka Ingiriiska haddii aad degan tahay dalalka kale ee luqadda Ingiriisiga lagu hadlo waxna lagu barto haddii aad degan tahay dalka hooyo qaab online ayuu iskuulkani ku shaqeeyaa oo carruurta wax ku bara adiga oo gurigaaga jooga amba ilmahaaga oo gurigiisa jooga ayaa wax lagu barayaa iskuulkan magaciisa waxa la yiraahdaa Key Stage Learning waa iskuul qaab online wax ku bara Englishka mathska iyo waliba science-ka iyo maadadaha kale ilmahaagu uga baahan yahay in laga caawiyaba si uu ugu keeno dhibcaha ugu sareeya iskuulka oo uu future fiican iyo mustaqbal fiican u helo ma sha Allah iskuulkaas la soo xidhiid macallin Cabdirasaaq iyo Key Stage Learning oo la ku yaala telefoonkiisa iyo adresskiisana shaashada ayaa ka arkaysaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان ولا لها قيمها يقدرين تمضن كحدن channel كنا فاطمة منى channel خيري برواقة بدن بدي رجينيا tani waa qayb kamida qaybihii ambase waa qaybtii lixaad qisadii iyo taariikh nololeedkii madaxweynihii hore ee Ciraaq Saddam Hussein al-Majid hadaba maanta waxaynu ka wada hadlaynaa ambase aan idinka sheekeynaya qisadii dagaalkii al-Ciraaq iyo Iran dagaalkii Ciraaq iyo Iran waxba ka horeeyay waxba sabab u ahaa runtii waxa uu ahaa dagaalkaasi dagaal waqti aad u gaaban madaxweynihii Saddam Hussein oo bila yar haysta xukunka dalka Ciraaq ayuu dagaal weyn uu isku qaaday dagaalkaasi dalkii jaarka la ahaa ee Iran ayuu Saddam Hussein ku qaaday asbaabta uu dagaalkaas ugu qaaday Iranna waxay ahayd dalka Iran boqortooyadeedii waxa ahayd waqtigan aynu ka hadlaynaa waqti boqortooyooyinka la jabinayay oo dawlado badan ay ka dhacaysay kacdoon boqortooyada ka soo horjeeda marka kacdoon shicib ayaa ka dhacay dalka Iran waxa halkaasi lagu jabiyay oo afgambi lagu sameeyay boqorkii ugu dambeeyay boqortooyadii Ciraaq marka waxa ka wada Iran afwan boqortooyadii Iraankii boqorkii ugu dambeeyay marka Iraniyiinta ayaa la jabiyay oo marka afgambi lagu sameeyay boqorkaasi iyagu boqor waxay yiraahdaan shaah bay yiraahdaan Iraniyiintu marka Shah Mohammed Rida Pahlavi ayaa la oran jiray boqorkii ugu dambeeyay boqortooyada maaragtay dalka Iran kacdoon shicib baa marka kacay dalka Iran waxa loo bixiyay al-Jumhuriyya al-Islamiyya al-Iraniyya jumhuuriyadda muslimka ee Iran ayaa loo bixiyay markaasi waxa jumhuuriyadaasi madaxweyne ka noqday nin la oran jiray Ayatollah al-Khomeini ninkaas oo marka wadaadadii shiicada kamid ahaa oo run ahaantii bacdamaaba khilaaf uu ka dhaxayn jiray oo de xukunka uu isku day jiray inuu afgambi uu ku sameeyo dalkiisa ayaa uu soo mustaafiriyay boqorkii intii aan boqorka la jabinin ee Iran ayna afgambiga ku sameeynin Shah Mohammed Rida Pahlavi wuu soo mustaafiriyay Ayatollah al-Khomeini markii dalka laga eriyay dalkiisa laga eriyay waxa loo mustaafiriyay dalka Ciraaq hadii loo mustaafiriyayna waxa uu ku noolaa magaalo dadka shiicada muqaddas oo ah oo Ciraaq ku taalo oo la yiraahdo Madiinatu Najaf al-Muqaddasa haddaba magaaladaasi ayuu ku noolaan jiray Ayatollah al-Khomeini in muddo isagoo markaasi baxsad ka ah amba mustaafiris ka ah dalkiisa oo markaasi siyaasiga khilaafka siyaasiga awgii markaasi uga soo baxsaday dalkiisa ninka Iraniga Ayatollah al-Khomeini waxa uu markaasi halka uu ku noolaa in muddo haddaba waxa isku dayeen dalka Iran iyo Ciraaq inay heshiis ay saxeexaan oo ay heshiiyaan khilaaf kale ayaa jiray horta intaan khilaafka kale u gudbin aan idin sheego oo Iran waxyaabihii ay ku shuruutantay hadaynu Ciraaq ay heshiino waxaanu idin ka rabnaa in ay mustaafirisaan ninka Ayatollah al-Khomeini la yiraahdo dalkiina jooga anagana mucaaridka nagu ah hadaanu Iraniyiin nahay anagana naga tirsanay Iraniga waxaan rabnaa inaan wadankiina ka eridaan oo ka mustaafirisaan wadankiina
إن صدام حسين أرنكاسي أيو صحيح وقلاضي هل كاوحة مركاسي دعي خلاف أنبا إسنبعانشية يعولاد أي دحمري صدام حسين آية الله الخميني آية الله الخميني ونبعانك صدام حسين سوتا أوحو كدن بهشيسكي إيران كشرو تنطيين سجل لجي إريو دولكا مارت العراق مركال ومجنجلية ذا وكتشوجي شيعديسي وكدحشر شوجي marka dadkan shiicadii waa dad isku diin ah laakiin laba dal kala ah marka Iran majority dadkeedu waa shiica Iraqna majority waa sunni laakiin hadana shiica number weyn ah ayaa jira oo markaas ay kamid tahay magaaladan an-Najaf magaalo ayagu ay u xajaan xaqooda oo ay u haystaan meel muqaddasa marka magaaladaasi ayuu u joogay saan soo sheegay Ayat Allah al-Khumeini oo ku dhex dhoomanaya dadkiisaas amba ku dhex noolaa dadka shiicada isku diinta ay yihiin laakiin markii Saddam Hussein uu ogolaaday codsigii Iran ee ahaa in wadanka Iraq laga mustafriyo Ayat Allah al-Khumeini wuu nacay ninka Saddam Hussein oo colaad weyn ayuu u qaaday taasina way kamid ahaan doontaa asbaabta dagaalkan sababta dagaalkan Iran iyo Iraq waxa uu dhacay waqti Ayat Allah al-Khumeini uu xukumayay Iran oo isagu intuu boqorkii Iran ugu dambeeyay Maxamed Rida Pahlawi uu jabiyay oo uu afgambi ku sameeyay in isagu markaas Ayat Allah al-Khumeini uu xukumayay Iran isagoo markaa nabcaashiyihii iyo colaadii u qabay Saddam Hussein taas waxay ahayd sabab kamid ah sababaha dagaalkaasi waxa kale ee sababta dagaalkaasi asbaabta kamid aha waxa uu ahaa in ay Iran in muddo dheer ay faragelin jirtay arrimaha in Iraq ee gudaha ah oo ay siday ku faragelin jirtay ay ahayd in ay caawin jirtay oo dhaqaale iyo hub iyo tababar iyo waxyaabo badan ay ku caawin jirtay ciidamada amba se jabhadda kurdida karaadka amba kurdida ah oo markaa raba inay si ka goostaan qaybta ay maaragtay ku leeyihiin Iraq inay goostaan ay rabaan ay rabi jireen marka kacdoon ay amba jabhad mucaarid ku ah maaragtay Iraq oo rabta in dawladda inta kala go'do in gobolada ay degaan dadkaasi kurdidu inay la go'aan gobolkooda ay rabi jireen taas ayay dawladda jaarka la ihi Iraq oo la yiraahdo Iran marka ay ka caawin jirtay dadkaasi jabhadda ah ay ka caawin jirtay si ay uga go'aan dalkoodaasi in magaranaysa Iraq halkaasi oo marka dawladda Iraqna colaad ay dhexmari jirtay had iyo jeer Iran oo ay oran jireen maxaa u soo fargashanaysan arrimaha iyaga gudaha ah maxaa gobol anaga naga mid ah maaragtay jabhadiisa oo caawinaysa si ay nooga go'do taasna runtii Iraq waa ay isku colaadsadeen Iran iyo Iraq arrin saddexaad ayaa runtii jirtay oo ahayd meel webi ah ayaa jira webi la yiraahdo Shat al-Arab amba waa area biyo ah oo webi ah oo la yiraahdo Shat al-Arab marka Shat al-Arab waxa weeyaan waa biyo ay isugu yimaadaan labada webi ee waaweyn ee ku yaala dalka Iraq sidoo ogsoonahay dalka Iraq waxa ku yaala laba webi oo waaweyn waxa la yiraahdaa Dijla wal Furat ayaa la kala yiraahdaa marka Dijla iyo Furat meel baa jirta ay labada webi ay isaga yimaadaan amba se ay maartay biyahoodu ay isku xiran yihiin oo maartay meesha ka soo bilaabmaan meeshaasi waxa la yiraahdaa Shat al-Arab ayaa la yiraahdaa meeshaasi markaasi waxa wada isticmaali jirtay biyahaasi oo meesha labada webi isugu yimaadaan ah dhulka Iraq ayaa wada isticmaali jiray qaybtiisa barina waxa ay ku taalaa dhulka Iran dabadeetana khilaaf ayaa halka ka dhacay oo Iran waxa ay rabi jirtay in biyaha ay la isticmaasho Iraq amba ugu yaraan qaybta iyada soo xigta ay isticmaasho hayeeshee heshiis ayaa markaasi labada dawladood ay ka gaareen in muddo ay isku khilaafeen arrinkaasi ugu dambeyntii heshiis ay ka gaareen heshiiska ay ka gaareen waxa loo bixiyay ittifaaqiyat al-Jazaa'ir magacaana waxa loogu bixiyay waxa dhexdhexaadisay dalka al-Jazaa'ir ayaa dhexdhexaadisay marka Algeria loo yaqaano dalkaasi markii uu dhexdhexaadiyay heshiis ayay kala saxeexdeen labada dal Iran iyo Iraq heshiis ayay kala saxeexdeen heshiiska ay kala saxeexdeen waxa markaasi uu ahaa sanadku markuu ahaa 75kii ay heshiiskaasi ay saxeexdeen oo markaasi in
ay heshiiyeen labada dal oo shuruudaha qaar ay ku heshiiyeen in ahayd inay Iran ayna soo faragashanin kurdida oo ayna caawinin sidoo kalena in biyahaasi la wada isticmaalo oo qaybta bariga ee xigta Iran isticmaasho in doomaha iyo maaragtay isticmaalka badana inay isku si uga wada faa'iidaan maaragtay webigaas u dhaxeeya maaragtay labada dhinac inay isku si uga faa'iideystaan oo markaasi ay sidaas ay ku heshiiyeen ha yeeshee heshiiskaasi muu sii waarin oo waxa dhacday in markaasi ay haddana khilaaf ku dhacay isticmaalka biyaha awgii oo khilaaf uu dhexmaray colaadii horena waynu ogeyn oo haddan madaxweynaha Iran waa ninka la yiraahdo Ayatollah Khomeini oo si gaar ah u neceb Saddam Hussein bacdama Saddam Hussein uu ogolaaday in hadda ka hor laga mustaafiriyo maaragtay Iraq kadibna Saddam Hussein markii khilaafkii uu sii batay waxa uu ahaa nin ku dhiiran dagaalka marka waxa uu rusheeyay area maaragtay airport la yiraahdo Mehrabad ayaa la yiraahdaa waxa uu u dhow yahay magaalada Tehran ayuu maaragtay uu baabiyay waxa markaas kadibna sidaas ayuu marka 10 bilood ayuu khilaafkaasi horta u socday oo kolba la siro duqduqeynayay kadibna dagaal toos ah ayaa dhacay dagaalkaasi marka uu dhacay waxa ay Saddam Hussein waxa markaasi garab istaagnaa sida u badan yihiin dawladaha Carabta waayo dawladaha Carabtu si gaar ah khilaaf ayaa uga dhaxeeya Iran oo maaragtay dawladda Iran iyo dawladaha kale Carabtu isma jecla marka garab waxa ka siinayay Saddam Hussein waxa si gaar ah taageerayay dawladaha Carabta Mareykanka iyo Sovietku labadoodba waxa ay isku si waliba u taageerayeen Saddam Hussein oo arrinka ay isku si uga taageerayeen haddaba siday doontaba u dhacday dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal runtii aan loo baahnayn lagana badbaadin karayay hadii de Ilaahay u qadari lahaa labada dalba runtii ciidamada markaasi Irantu waxa la yiri waqtigaasi hubkoodii amba ciidamadoodu aad uma sii awood badnayn laakiin dadkooda ayaa ahaa dad diiniyan israacsan oo markaasi waxa ku jiray dareen diimeed oo badan oo shiicadan ayaa aad maaragtay madhabkooda shiicada aad uga dhaadhiciyeen oo waxay ahaayeen kacdoon shicib oo waliba kacdoon diiniya Saddam Hussein uu ka warwarsanaa kacdoonka diiniga bacdama dalkiisa ay ku jiraan dad shiica ah oo maaragtay shacabkiisa qayb kamid ay shiica tahay wuxuu ka warwari jiray inay shiicadaasi ay Saddam ninka la yiraahdo Ayatollah Khomeini in uu ku yeesho saameyn oo iyaga laftigoodu ay ku kacaan xukunka Saddam Hussein oo marka iska aha xukum cilmaani ah xukunka cilmaaniga waa xukunka aan maaragtay diin gaar ah aan socodsiinahayn amba si gaar ah diin ugu soconahayn dagaalkaas Iraq iyo Iran waxa uu ku bilaabmay in maalmii ugu horeysay dawladda Iraq ay rushaysay oo maaragtay ay baabisay eriyooyinkii amba meelihii webi u dhawaa badda welibana batroolka lahaa in ay meelahaasi ay hor baabisay kadibna dagaalkii ayaa ku dheeraaday Iraq ma moodeen dagaalku inuu sida ugu dheeraanayo laakiin dagaalkii ayaa ku dheeraaday waxa markaa dhacday in ay burburtay dhaqaalihii Iraq oo dagaalkaasi uu burburiyay waxyaabaha ay runtii aad iyo aadka u khaldana noqday dambi aad iyo aad u weyn oo Saddam Hussein uu sameeyay waxa kamid ahayd in uu dadka Kurdida uu rusheeyay oo uu ku rusheeyay hubka chemicalka ah ee sunta ah halkaas oo runtii eriyooyinkaas Kurdida ee Kurdistan marka uu rusheeyay ay kamid ahayd meelahaasi amba meeli ugu baabaa badnaa ay ahayd magaalo la yiraahdo Halabja magaaladaas oo dhammaanteed baabaaday oo dadkii ku noolaa uu rusheeyay waqtigaasi waxa uu ahaa 1986 bishii Maaris dadka meesha ku dhintay waxa loo maleynaya amba lagu qiyaasay inay yihiin 4500 oo qof oo marka dad tuulayaasha iyo magaalooyinkaasi Kurdistan deganaa oo dad Kurdiya oo waliba dad maatiya oo caruur iyo waayeel iyo haween u badnaa ayuu u wada rusheeyay dadkaasi iyaga oo meyd ah ay dhulkii daadsanaayeen
iyada oo xabad iyo dhiig midna uuna ka muuqanin laakiin sun maaragtay jirkoodii hawada maaragtay naqaskii ay qaateen amba maaragtay sun ay ku dhinteen lagu rusheeyay oo sida duqsiga loo buufiyo oo kale ayuu runtii ninkaas Saddam Hussein uu dadka shicibka ee rayidka ah ee waxba aan ka galabsanin ayuu u rusheeyay arrintaasi waxa ay markaasi waliba uu dambiga uu saaray Iran ayuu dambiga saaray wuxuu yiri anagu maanu ku rusheynin sunta chemicalka shicibkaasi laakiin Kurdistan waxa uu ku rusheeyay maartay ereyooyinka Kurdistaanka amba Kurdida waxa ku rusheeyay buu yiri Iran dambiga uu ka saaray uu dambiga u saarayna runtii cadaymo muu keenin cadaynaya in ay Iran ay mas'uul ka ahayd marka tabcan waxa loo arkayay in uu Iraq uu sameeyay oo taas ay xaqiiqadu ay ahayd isla marahaantana dagaalkaas uu Saddam Hussein uu qaaday waxa uu ka heli jiray dhaqaale iyo taageero guud ahaan dawladaha Carabta iyo waliba madaxweynihii hore ee Mareykanka xilligaas oo magaciisa la oran jiray Ronald Reagan Iraniyiintu waxa ay kusoo dalaceen biil amba waxa kusoo dalaceen kharashkii dagaalka oo yiraahdeen haddii rabtaan in aanu la heshiino waa inuu bixiyo khasaarihii badnayd iyo dagaalkii badnaa ee maaragtay uu waxyaabihii uu ku khasaareeyay dalkaas Iran inta muddada uu la dagaalamayay haddaba ha yeeshee dagaalkaasi waxa uu socday ilaa 1988 ayuu dagaalkaasi u istaagay xilliga uu istaagay waxa ay waliba Iran ay isku daysay in ay caawiso dadka Kurdida ah inay kacdoon sameeyaan oo iyagu jabiyaan xukunkan cilmaaniga ee Saddam Hussein uu ku hayo maaragtay wadanka uu ku xukumayo in ay shicibkaasi shiicadihi waliba in ay jabiyaan oo ay kacdoon ku sameeyaan ay Iran ay isku day jirtay hay'ashee dagaalkaasi waxa uu istaagay sanadku markuu ahaa 1988 dagaalkaas oo runtii socday muddo 8 sanadood oo ahayd runtii 8 sanadood ee ugu horeysay xukunka Saddam Hussein isagoo bila yar wadanka haysta amba xukunka haya ayuu dagaalka uu isku qaaday khasaaraha ka yimi waxa uu ka badnaa 1,700,000 oo qof oo ka geeriyooday labada dhinacba sidoo kalena labada dhinacba waa Iraq iyo Iran ee dhaqaalahoodii ayaa aad ugu baaba'ay sidoo kalena dalkii Iraq waxa uu kaga baxay dagaalkaasi isaga oo deyn lagu leeyahay 75 milyan oo dollar ah marka dawladii Iraq iyo ninkii Saddam Hussein ee islaha caalamkan Carabta hogaamiye aad u noqotid dawladaha Carabta hamidoobaan aad noqotid wadanka ugu dhaqaalaha badan ugu horumarka badan oo runtii uu dariiqaas wadankaasi uu ku jiray wahaaba wadanka xilligaas ugu dhaqaalaha badan ugu petrolka badan waxa uu noqday wadan deyn badan lagu leeyahay oo marka 15 bilyan ma milyan baan dhimay waxay ahayd billions 75 billions dollars ayuu kaga baxay oo deyn ah marka taasi waxa ay keentay markaasi in uu dhaqaalihii Iraq uu aad u burburo Iran laftigeeda dhaqaale badan ayaa ka burburay dagaalkaas sababtiisa Saddam Hussein talaabadaasi talaabo aanu hore ugu xisaabtamin uga fikirin uga baaraadagin ay ahayd khasaare badanna u soo jiiday dalkiisa iyo xukunkiisaba haddaba khayr iyo barwaaqaan idin rajaynaya halkaas waxaynu ku dhameynay qaybtii 6 May ee Saddam Hussein qisadiisa intaynu ku kulmi doono program kale iyo dhamaystirka waliba qisadan Saddam Hussein khayr iyo barwaaqo badan ayaan idin rajaynaya waxaan idin leeyahay fi amaanillah astawda'tukum allah alladhi la tadhi'u wadaa'i'u wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh